maalmihii la soo dhaafay waxaa khilaafa uu ka dhex jiray mas-uuliyiinta ugu sarreysa dowladda deegaanka Soomaalida gaar ahaan xubnaha ay sida weyn isugu dhawaayeen madaxweynaha deegaanka Soomaalida mudane Mustafa Maxamed Cumar. khilaafkaasi ayaa waxa uu galaaftay xubno caan ka ahaa dowladda deegaanka Soomaalida gaar ahaan hogaankii nabadgelyada madaxii barakoolka xafiiska madaxweynaha deegaanka Soomaalida iyo mas-uuliyiin kale oo ka tirsanaa dowladda deegaanka Soomaalida. sidoo kale waxaa isaguna haatan haad geed waaye noqday ku-xigeenka madaxweynaha dowladda deegaanka Soomaalida mudane Aadan Faarax oo qayb ka ahaa khilaafka ka dhex curtay hogaanka sare ee dowladda deegaanka Soomaalida. shacabka ku dhaqan deegaanka Soomaalida gaar ahaan kuwa iyagu sida dhow ula socday xaaladda siyaasadeed ayaa waxaa walaac ay ka muujiyeen khilaafka ka dhex curtay mas-uuliyiinta dowladda deegaanka Soomaalida xilligan oo lagu jiro waqti adag oo guud ahaanba caalamka uu si weyn u saameeyay xanuunka lagu magacaabo COVID-19 kaasi oo dad badan ku laayay dunida dacaladeeda haatan ka jira dalka Itoobiya oo waddanka Ogaadeeniyana uu qayb ka yahay. haddaba madaxweynaha dowladda deegaanka Soomaalida oo ka duulaya sidii loo dardargelin lahaa guud ahaanba howlaha deegaanka Soomaalida loona buuxin lahaa booska hogaanka nabadgelyada ayaa waxa uu soo magacaabay madaxweyne Mustafa Maxamed Cumar Dr. Xuseen Xaashi Qaasim oo ah aqoon-yahan ka soo jeeda dowladda deegaanka Soomaalida muddo dheerna ka soo shaqaynayay howlaha dowladda deegaanka Soomaalida xilal kala duwanna sidoo kale ka soo qabtay xukuumadihii soo maray dowladda deegaanka Soomaalida. haddaba waa kuma Dr. Xuseen Xaashi Qaasim si aan wax uga ogaano taariikh nololeedkiisa xilalka kala duwan ee uu soo qabtay iyo weliba waxa la gudboon ayaa khadka taleefanka magaalada Addis Ababa waxaanu ku tiigsanay weliye Asad Idaaja oo isagu halkaasi ku sugan si dhowna ula socday aqoonna u leh Dr. Xuseen. mudane Asad waad maqlaysaa waan filayaa. si fiican ma ku maqla jaamac. waa tahay bal hadda ugu horreyn inta ayna gelin waxa hor yaalla daktarka Dr. Xuseen Xaashi Qaasim waa kuma. waad mahadsan tahay mar kale jaamac. madaxweynaha deegaanka Soomaalidu waxa uu magacaabay Dr. Xuseen Xaashi Qaasim aqoon-yahan ka soo jeeda deegaanka Soomaalida. haddii aynu taariikhdiisa oo kooban dib ugu noqono doctorku waxa uu dhashay 1973 waxaanu ku dhashay gobolka Jarar caasimadiisa Dhagaxbuur. waxbarashadiisii hoose dhexe waxa uu ka bilaabay isla Dhagaxbuur waxa uu ku dhameeyay waxbarashadiisa heer dugsiga magaalada waxa uu galay jaamacadaha Itoobiya mid kamid ah mastertiisi waxa uu ku diyaariyay cariga Mareykanka sidoo kale shahaadada sare ee PhD-ga loo yaqaano waxa uu ku diyaariyay dalka Canada. kadib doctorku waxa uu ku soo laabtay deegaanka waxa uu xilal kala duwan ka soo qabtay dowladdii uu hogaaminayay Cabdilaahi Xasan oo Cabdilaahi Lapuur loo yaqaanay. waxa uu noqday wasiirka madaxtooyada isla haddana waxa uu noqday madaxa britikoolka madaxtooyada. intaa kadib waxa isku dhaceen maamuladii kala dambeeyay ee ka talinayay deegaanka Soomaalida kadibna waxa uu noqday mucaarid jeeda xukuumadahaasi. Dr. Xuseen Xaashi Qaasim waxa weeyaan aqoon-yahan si weyn loo qadariyo aamusan afgaaban. si kale haddaynu u dhignana waa saaxiibka ugu dhow ee ra'iisul wasaaraha dalka Itoobiya ra'iisul wasaare ku-xigeenka Dhammaan Makanan Xasan. sidoo kale waa nin si weyn looga ahaan deegaanka dadka Soomaaliyeedna si weyn u soo dhaweeyeen. doctorku waxa uu awlaad haystaa 3 ciyaalo oo kaliya ah 2 gabdhood iyo wiil iyo 2 xaas. waa aabo 3 ciyaalo leh. waqti xaadirkana waxa loo magacaabay inuu noqdo booska Cabdilcaadil Xasan oo ahaa hogaanka nabadgelyada isla markaana uu saahiday khilaafaadkii u dhaxeeyay mas'uuliyiinta deegaanka ugu saameeyay inuu isagu maamulo xilkaasi loo magacaabo. shacabkuna waxay rajeynayaan runtii inuu noqon doono mid sidii loo baahnaa u fuliya xilkaasi maxaa yeelay dabiic ahaan dadnimo ahaan iyo diin ahaan aqoon ahaan iyo dhaqan ahaanba waa nin macquula sida ay dadka aqoonta dheeraadka u sheegayaan. asadow waad mahadsan tahay. marka aynu dhinaca kale ka fiirino Dr. Xuseen Xaashi Qaasim waa aqoon-yahan tacliin sare leh laakiin arrimaha amniga baadh ogama duleelo. see suuragal ku tahay in uu u maamulo hay-adihii kala duwanaa ee amniga maadaama khibradiisa aqooneedba aysan dhinaca amniga ahayn? runtii waa su-aal isweydiin leh una baahan in si hufan looga jawaabo tafaasiil iyo faahfaahin dheeraadana laga bixiyo. doctorku aqoonta uu leeyahay dhinaca ammaanka ma aha shaqadiisa waa dhakhtar ku takhasusay dhinaca maxaa loolan jiray
doctornimada oo shahaadada PhD ka sita ha yeeshee marka la eego siyaasadda iyo qaab dhismeedka deegaanka Soomaalidu ma aha mid aqoonta qofka iyo khibradiisa lagu xusho laakiinse siyaabo kala duwan ayaa loo xushaa waqtigan lagu jira xasaasiga xanafta faraha badanna u dhaxayso shacab iyo maxaa la oran jiray siyaasiyiinta deegaanka ee ugu sareeya waxa qasab noqotay nin dulqaad leh dacsan degan dadnimo leh aqoon leh aqligiisuna ku filan yahay inuu qaban karo booskan waana qofkii ku habboonaabay shacabka iyo mas-uuliyiintuba leeyihin aqoon-yahan Dr. Xuseen waxa uu ka soo jeedaa qoys guud ahaanba shacabka Soomaaliyeed si weyn caan uga ah waa qoys halgama ah qoyskiisu waxa sidoo kale uu caan ka yahay geeska Afrika waxaana xilal sare oo kala duwan qoyskiisu ay ka soo qabteen dawladihii kala dambeeyay ee dalka Soomaaliya ma is leedahay madaxweyne Mustafa Maxamed Cumar waxa uu ku xushay Dr. Xuseen magaca iyo sumcadda uu bulshada ku dhexleeyahay ee aqoon kuma dooranin taasi ma aha runtii qodob la daliilsan karo maxaa yeelay aqoonta iyo maxaa la oran jiray taariikhda qoyskiisu isaga qiimo ma sameynayso qof ahaan laakiin isaga ayaa ah nin dhisan dhinac walbana ka dhammaystiran dhaqanka Itoobiya iyo waliba isdhexgalkoodana si fiican u yaqaana waana nin isku soo dhaweyn kara mas-uuliyiinta muddada dheer ay fiintu kala dhex miranaysay sidoo kale waa nin dhaqdhaqaaqa iyo maxaa la oran jiray waxyaabaha wax dhimaalka ku ah dhinaca nabadgelyada aqoon dheeriya u leh haddii aynu si kale u dhignana waa nin maxaa la oran jiray qunyar socda oo aan qallafsanayn qof kastana la jaan qaadi kara kuna qasban yihiin qof kasta inay isaga u hoggaansamaan waxaana laga dareemi karaa guud ahaan shacabka deegaan sidaa u soo dhaweeyay waan gartay ciidamada kala duwan ee amniga ee dowladda deegaanka Soomaalida inta badan waxaa lagu sheegaa ciidamo aan lahayn anshaxi ciidan oo tallaabaday doonaan qaada koox waliba siday doontay u dhaqmaan sharciga waxay maaragtay mudnaanta ka siiyaan hogaaminta kala duwan ee deegaanka gaar ahaan kolba mas'uulka markaa jooga ayay warkiisa qaataan ee sharciga kuma dhaqmaan ma is leedahay waxbuu ka bedeli doonaa hay'adaha kala duwan ee ammaanka dowladda deegaanka Soomaalida oo mar kastaba dhaliishu iyaga ay dul taalo ma aaminsani inuu wax badan ka bedeli doono laakiinse waxaan aaminsanahay isku tallajin doono oo dhanna uu ku soo koobi doono uu iyaga wax uga bedeli lahaa laakiin waxaynu ognahay linta waqtigan ka talisa deegaanka marka laga reebo hogaaminta dhinaca askarta haddii aynu noqono ma aha askar akhlaaqiyan aqooniyan maxaa la oran jiray qiyam ahaan intaba qaar u tababaran ma aha waa asruntii danabtay iyo weliba dabargoyntii dadka Soomaaliyeed in loo sameeyo oo kaliya si ay dunyo ugu qaataan daadinta dhiigga shacabka shilimaadna ay ugu qaataan siday shacabkooda u gumaadi lahaayeen waa dad u baahan waqti fara badan in la geliyo juhdi in lagu bixiyo mana aaminsani qof kaliya in uu dadkan wax ka bedeli karo laakiin waxaynu ognahay xukuumadda deegaanka Soomaalidu ugu faraha badan waxay sidii ay u qaab qorshayaal ugu dejin lahayd dad quman uga dhigi lahayd ciidamadan kala duwan ee deegaanka Soomaalida oo runtii la qabsaday qalalaasihii iyo badqalalihii TPLF kuna hana qaaday xasuuq iyo weliba dad la qowraco iyo waxyaabo qaladaad fara badan oo bulshada lagula kaco waxaan aaminsanahay inuu waqti badan gelin doono inuu ka qaban doono laakiin isaga shakhsiyan waxa la aaminsan yahay qof aan dhacdhici doonin inuu yahay una hoggaansami doona sareynta sharciga marka aynu dhinaca kale ka fiirino dowladda deegaanka Soomaalida xaaladeeda siyaasadeed muddo way deganayd laakiin si lama filaana ayaa waxa ku kacay mid ka mid ah khilaafyadii ugu xoogganaa ee soo mara xukuumadda madaxweyne Mustafa taasi oo gilgishay guud ahaanba hay'adaha kala duwan ee dowladda waxaana arrintaasi si weyn ay u gilgishay sidoo kale shacabka xilli adagna waa lagu jiraa oo sidaan horeba u sheegay xanuuno faafa ay jiraan oo cabsi weyn laga qabo inuu deegaanka soo gaadho maxaad is leedahay Dr. Xuseen Xaashi Qaasim wuu ka bedeli karaa xaaladda haatan taagan ee dhinaca kalsooni darrada siyaasadeed ay kala dhex gashay hogaamintii deegaanka Soomaalida gaar ahaan madaxweynaha iyo madaxweyne ku-xigeenkii oo iyaga haatan deerad u dhex marinayso jaamaco waa NDPC laba daran mid dooro weeye doctorka xaalada mid waa mid xaaladda deegaanka oo ah waqtigii ugu sareysay khilaaf abid yimaada deegaanka Soomaalida kaasi oo u muuqdaba xataa mid aan waxba la isula hadhayn oo la isu isticmaalayo sidii la rabo qof waliba awoodda inta uu leeyahay soo bandhigayo
haddii uu sharciga ka tallaabsado oo dhinac raaco waxaa dhacaysa in qaskii iyo qallaasihii halkii kasii taagnaado. haddii uu sharciga sida ay tahay waxaa dhacaysa maxaa la odhan jiray isfiicnaanin mas-uuliyiintii ugu sarreeyay deegaanka. marka xaaladda ugu cajiibsan ee hortaagan waxa weeye siduu isu waafajin lahaa ilaalinta dareenka dowladda iyo weliba mas-uuliyiinta isaga xilka u doortay iyo ilaalinta sharciga. taas ayaa ah caqabada ugu weyn ee hortaala doctoorka. laakiin waxaa la rajaynayaa in uu kaga baxo xirfad aqooneed iyo caqliyan maskaxiyan iyo weliba sida ugu macquulsan ee xaaladaha ibni aadamka soo darsa. markaynu si kale u dhigno dowladda Ethiopia oo aad moodo in ay ka gaabsanayso khilaafka deegaanka Soomaalida isla markaana ay ilqoorka kala socoto, waxa meesha ka baxay waan la rajaynayay in ay ku yimaadaan madaxweynaha deegaanka iyo xubnihiisa cabinetka gaar ahaan guddigiisa fulinta ee ugu sarreysa caasimadda Addis Ababa ee looga arrimiyo dalkan Ethiopia. ha yeeshee taasi meesha waa ay ka baxday. waxaa macquula markastana aan la ilaabi karin una baahan in hoosta laga xariiqo in lagu wajahayo khilaafkan hadba siduu isagu ka yeelo xaalinta iyo isku soo ugu sarreysa deegaanka oo deerada dhex maranayso. waan gartay. si guud markii laga yimaado khilaafkaasi maxaa hor yaalla hoggaanka cusub ee dowladda deegaanka Soomaalida marka laga fiiriyo dhinaca amniga, dhinaca sharciga oo gebi ahaanba dowladda deegaanka Soomaalida aan ka shaqaynin oo mas-uuliyiinta kala duwan ee dowladdu tallaabooyinka ay doonaan ay qaadaan iyaga oo aan sharci u maraynin. arrimahaasi maxaa aad isleedahay uu ka bedeli karaa? maxayse tahay baad isleedahay caqabada ugu weyn ee si guud dhinaca sharciga haatan isaga ka hor imaan karta? caqabada ugu weyn ee hoggaanka ka hor iman doonta waxa weeye in uu waafaqo amase uu u hoggaansamo sharciga. maxaa yeelay sharciga haddii loo hoggaansamo ma raali gelin doono mas-uuliyiin badan iyo welibana maxaa la odhan jiray dadyago kala duwan oo dana gaara leh. maxaa la yidhaha askarta oo ku dhex milansadii isla markaana kooxaysi iyo guruubaysi u kala fadhida. sideeda banaanbana jaamaco markaynu eegno xaaladda deegaanka Soomaalida maanta sharcigii waxaad moodaa mid aan aad u shaqaynayn isla markaana in la isticmaalayo awoodo iyo maxaa la odhan jiray graduation askarta hadday noqoto Ethiopia iyo hadday noqoto national forces lieu police-ka ciidamada loo yaqaano. laakiin isaga markasta waxaa macquul noqon karta in uu ka badbaado caqabadaha kaga imanaya amase cadaadsida kaga imanaya dhinaca xukuumadda deegaanka, taasi oo aan aaminsanahay inaanu aqbali doonin wax kasta oo qalad oo lagula kaco qof kale oo muwaadina xuquuqdiisana lagu dejiyo. haddiise uu kula kaco waxaa hor iman doonta fadhi weynaa abid oo dhexmara ugu sarreysa deegaanka Soomaalida hadday noqoto nabadgelyada iyo hadday noqoto